السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناصر علي waxaad tahay macalinka iskuulka luqadda Faransiiska ee lagu dhigo magaalada Paris khaasatan La Chapelle. macalin iskuulkani maxaa uu dhigayaa maxay tahay waxa lagu dhiganayaa luqaddu maxay tahay horta alaykum salaam kusoo dhawow iskuulkeena iskuulku wuxuu dhigayaa luqadda Faransiiska barashada luqadda Faransiiska weeyaan taasoo yani aan ka jawaabno baahi badan ku jirta dhinaca Soomaalida dadka ku sugan magaalada Paris. macalin waxaan ku diisi lahaa iskuulkani dadka loo furay qaabkiiba yihiin dadka loo furay ma Soomaaliin baa loo furay mise cid kastoo luqadda inay barataa afka Faransiiska ay u furay iskuulka markaa waa su'aal muhiim ah iskuulku horta qof cid walba uu furay qof yar qof weyn cunugi aanu buu furay qof walba Soomaali ama wuxuu danskaado laakiin iskuulkan hadafku yani waa inay yani khaas ahaan dadka Soomaalida ayuu si fiican ugu furan ku soo dhaweynaa ee ku sugan dalkaas Paris waa maxay wadanka Faransiiska ku sugan khaasaan ayaan u soo dhaweynaa marka haween iyo inamada uu furan yahay baa leedahay da kastaba uu furan yahay baa leedahay luqadda Faransiisku marka macalin aan ku sii soconay waxa weeyaan iskuulkani oo goortiba la asaasay asaaskiisa goortiba ahaa jadiida in kala sameeyay la abuuray baa iska markii hore muu jiray ma jeclahay iyo maxaa loo abuuray marka baahida loo abuuray maxay tahay marka horta iskuulka aniga ahaan naasir ahaan yani intaan furin waxaan ku dhigi jiray sabtidii yani meelaha kaafiga furin jiray luqadda dadka yani dhowr qof oo aniga yani customer ahaa aan ku bari jiray saacada siin jiray maadaama waxay yani xafiis saan oo kala ma haysan iskuul noocan oo kala ma haysan fikradan waxa lagu rarto waa fikrad yani muddo badan aan madaxa ku haynay aniga asxaabtayba inaan meel furano marka waxaan furnay ilaa muddo koorsas 3 bil koor baa furnay iskuulka furnay imanka waxa socota diiwaangelinta wali ku jirnaa sax macalin waxaan ku diisi lahaa iskuulkani wali ma la bilaabay mise wali waxa lagu jiraa madaragtay scriptkiiba lagu jiraa oo dadkiiba wali qoritaankiiba wali la wadaa wali iskuulka waxa ku jirnaa diiwaangelinta ku jirnaa bisha Ramadaan oo imanka dhowr qof oo tiras ka badan ayaa soo qortay marka diiwaangelinta bishan ku jirnaa iskuulku wuxuu bilaamayaa sidoo aragteen waraaqada ku soo dhajinay maxay dukaanada Soomaaliya oo dhan ama baraha bulshada noo taala wuxuu bilaami doonaa insha Allah bishan afraad ciidda kadib 18 bilaami doonaa insha Allah sax marka sida u fahmay waxa ka dhigan tahay bisha Ramadaan oo dhan iyo socod doonaa madartay qoritaanku marka is qorayo bisha Ramadaan iyo socod doonaa diiwaangelintu socod doontaa insha Allah marka hamuugaynaa yani inaan soo siyaaratiin xafiiskeenu wuxuu ku yaalaa sidoo wariyuu noo sheegayo ama sidoo noo sheegayo ardayga Xamsi wuxuu ku yaalaa yani bartamaha La Chapelle ka soo horjeedka maqaayadda Mandeer marka hamuugaynaa inaan soo siyaaratiin صح خليني لوني محمد صح waxaan ku diis lahaa macalin oo qofka u baahan inuu iskuulkaasi imka uu wax ka barto halkii wax u soo maraya miyay jirtaa siyaabo oo qofku madaragtay uu markaaba lagu soo xiriiri karo mise telefoon mise madaragtay website ma leediin horta waxaa leenahay yani macluumaadkuna ciwaankeenu wuxuu maxay ku yaalaa waraaqdaas oo yani waxaad ka helaysaa wixii yani macluumaad dheeri ah faahfaahin warbixin information qofka soo baahda lambarkeedu inta buu ku qoran yahay ibir dul ka bilaabmi doonaa macal address inta nagu taala su'aasha anoo ka sii jawaabaya iskuulku wuxuu kala bixi doonaa laba qayb sax oo wuxuu kala baxay laba qayb yani waa imaasho oo iskuulka ma lagu dhiganayaa qaybna yani waa online ahaan weyn dadka imanka degan gobolada dadka degan degmooyinka u dhow maxay ahayd Faransiiska oo degan sax ayaa ka faa'iido doona marka qaybta online-ka ciwaankeyga ay igala soo xiriirayaan lambarkeyga nagu soo celin iyo emailkeyga qof kasta wuxuu siban doonaa insha Allah inuu soo qoro magaciisa dhammaystiran iyo lambarkiisa iyo soo raaciyo صح ما شاء الله صح وصح ميو سي وناكسن وخاص waxa sheegtay waa laba gees u dhacay waa tiri iskuulku dhaxal iskuulku marna waa geeskan madaragtay qofku imanaya oo saabkiiba qofku uu aadaya oo iskoolkiiba qofku dhinaca ku dhiganaya oo imanaya iyo mid waxa jirta qof isagoo xaafadiisa iska fadhiga qalkiisa gurigiisa iska fadhiga iyo online kala soconaya miyoo soo si wanaagsan insha Allah waxa weeyaan Naasir macallin waxaan ku rutilaa madaragtay oo maxaa kale oo macallin
adoo raalli ah maxaa kale oo service ah oo iskuulka uu leeyahay maadaama ay ardayda baahi badan ay qabaano wax kaloo service oo luuqadda ahayn ma jiro way jirtaa waa su-aal muhiim ah arday anagu haddaan nahay macallimiintii ama dadkii luuqadda baraya barashada waxaan kaloo yacni idiin soo bandhigaynaa qof walba oo kamida yacni customerkiina ama ardaydiina kamida ama olinahaaba ama nala joogo yani inaan ka caawin doono wuxuu adeegyada u baahan yahay adeegyada dowladdu dhan u baahan yahay oo yacni khaasaan ugu baahan waxaa kamid a kaafta waxaan kamid a yacni caymiska si loo xareysto yani qof walbo ardayga anigaha waxaan ka caawin doonaa insha allah wuxuu u baahan yahay service kale oo yacni dowladaha arrimaha dowladda sida cashuurta taas iyo in kaleeto oo qofka yani wuxuu su-aal qabo ka caawin doona insha allah marka haddaan fahmo waxa weeyaan macnaha iskuul markaa kuma koobno service kale baa jiro qofka markaa hadduu dibadii wax uga baxdo magaaladii maadaama luqadii uu qofku uu garanayn oo weli uu ku jiro madaragtay wax dhigitaankii uu ku jiro waxa inuu barto uu doonayo marka hadda wixii kale uga baxdaa dibadda markaasi waa la qabalisiin baad leedihiin waxaad leedihiin markaa xafiis madaragtay u gaarsan oo madaragtay waxa dibadda qofkuna loo raaco oo wixii qofku madaragtay halkaasi uu ka rabay muraad uu soo guto markaasi xafiis isaa jiro oo leedihiin markaa hawshaa dhamaynaysa soomaha qofka la samaynaysaa waa su-aal fiican yani iskuulkeena dhexdeena xafiisba anigu aan ku leeyahay naasir ahaan macalin naasir xafiiskaa yani qof walba waxaan ka caawin doonaa yani wuxuu ugu baahan baahidiisa gaarka ugu baahan yahay dibadda ahaan ugu baahan yahay suuq hadday noqoto hadday kaaf noqoto hadday dhakhtari noqoto si fiican yani waa daba socod qofka waxaan rabaa yani sida yani maxaa la yihahdaa social camal inuu sameeyo accompagnement yani inuu sameeyo dabagal qofka u sameyno oo maxaan ka caawino siifiyaa shaqada ka caawino ilaa uu shaqo intuu keeni lahaa yani markaa iskuul luqad barasho umaahin wax walba qofka waan ka caawin doonaa insha allah intii itaalkeena iyo karaamkeena waa saxbiyo maasha allah si wanaagsan yani waxaan rabaa anigu daray arday yani qofku inuu yani gaadhigiis isku wadi lahaa bilow ilaa dhammaan luqadii shaqa abuurkii shaqada yani su qofku yani u doodooni lahaa qofku su isku filaan lahaa ayaan ku dara jirnaa inaan isku dayno aan soo badhigno insha allah emailka oo online-ka iyo emailka teleefonkaaga waxoo dhan warqadan ay kuwada qoran yihiin soo maha ha yani macluumaadka xagga inta bay ku qoran yihiin emailka waa emailka shaqadeeda bayaan inta baa igala soo xidhi kartiin lambarkuna waa kan whatsapp ahaan uu leeyahay qof walba intaas igala soo xidhi markaad macluumaad maxay dheeriya haddaad u baahantid qofkii u baahan whatsapp iyo qofkii teleefon u baahan iyo ninkii emailku soo diraya halkaas isku soo diiwaangelina fiicana isniin ilaa iyo sabti waa shaqeynaa min 9 subaxnimo ilaa iyo 6 maxay ahayd galabnimo yani 3 saaco ilaa iyo 6 galabnimo insha allah marka toddobaadkii usbuuca ma inta toddobaadkaaban iyada qofku iskoolku imanayaa mise waa kulliba 2 cisho iyo 3 cisho qofku waxuu aadaya iskoolka صح كحرته قفك نعم نجوميسه اوكي سؤال في عن يعني قيب كان انو وسو بدغنو انت حق دبا نيغا دغيهد waxa weeyaan in kasoo yani dadka yani baahidan le anaka maxay noo soo xeeray su'aashu dadka tabada ku shaqeeyaan ama luqad baritaan waxaan sameeyay yani dad intii shaqeysa inaan qordan sabti ya dhigi doonaa oo waa ka yani waraaqadii isku diiwaan gali waa foonki bayaan yani waxaan dhigi doonaa insha Allah sabti saacaduna inta bay ku qoran yihiin labada duhurnimo ilaa iyo 5 galabnimo dadka inta badan ka shaqeeya ee aawanka heerka aawanka arbacana waa dhigi doonaa insha Allah arbacana waxaan dhigi doonaa labada duhurnimo ilaa iyo 5 galabnimo yani waa 3 saac usbuuci ayuu qofku dhigi doonaa kadib waxaan yani ku soo biri doonaa anigana waxaan ku soo biri doonaa hadduu qofka saacada kale u baahan yahay si yaro gaaraan baa sida saacada kale u sii doonaa laakiin dadka inta badan nala soo qodsaday wixii yani waan shaqeynaa waxay sheegtaan yani waqtigii firaaqo lahayn saxda baan ku dhigay aawanka aatugana waa arbacada iskuulkeenu wuxuu si kala baxay dhowr heer weeyaan heerkii aawanka heerka aatuga heerka beaniska iyo heerka beetuga kulli way dadka jooga Faransiiska way la socdaan yani heerasha luqaduhu yani u kala baxaan waxa ugu hooseeya waa heerka aawanka weeyaan marka aawanku waxaan ku taagay inay sabti dhigtaan labada duhurnimo ilaa 5 saac hadda yani saacadaha ku qanacsaneen email aan qofku soo diri kara ama telefoon yani wuxuu oran karaa anu waxaan u baahnaa macalin saacada dheeri ah u baahnaa inaan igu dhiiriso
taa yacni waan ka sheegi doonaa insha allah. okay waxaan u fahmay saddex qeyb inuu loo kala qaadayo aado waa afar qeyb weyn yacni waa afar heer weyn aawanka aatu B-anis iyo B2ga asigoo lagu salayn doono qofka marka interviewgii laga qaado cod يعني واحد سمعت دونا اتحامل خفق دونا قف كي إنه ربي إنه ضل عاطو ضل اتحامل كغاية دونا ما كو اتحام كاس عمره يعني السين دونا يعني B-anis ودلع دونا يعني وحفظ إن هير كستبا وحولي الشهادة يعني تاسو يعني قد بقى سعنة دي أما هي حضل قرآن اتحامل قبل دونا وسكول يعني شرعية سن أنا يعني ما يعني سكول وسكول شرعية سن يعني والشهادة له إن شاء الله. okay هسه قولي وحقيقة ما شاء الله ما شاء الله أنا سيدا أفهمي إن شاء الله وسكول مدركتي وحن نقول أفكار على دوير وانترجيشن وانتجراسيون معناها مدركتي أو قف السود مدركتي وسيدا هذا البات سيدا هاد قف السود نلشي سا وسكود دبري كرا وقعنته وسود وسكود ذكرى مدركتي ومالك استبقف كل قدم مدركتي وكجوابي كروحي وقول بهاي بالمقتل وقدر كرا وحا ونبأ إن شاء الله وسيم لك سمع لنا ناصر أد بكون سلامنا أد بكون سلامنا ما شاء الله أنت لكن هذا سؤال كويتي صح ما دام أي الصومالي أي سويدنا يعني سكول أو فري أسجله واي كان والعكتة صح صح أقبل بني معلم هو صح هو سؤال ونكسله سؤال ونكسله هو سؤال هذا وقت عرب كله فتك ومعلم وحبيبه صح سؤال شيء سيو حيد لا سؤال شيء حويان معناها سكول كله وقالوا فرنسيس كله كاني ويدتك ويوصل بلغان وبلاش والعقب اللي بحين محو كذا دوين هاي سكول كان معناها وقف كنا ولقد مرة نجا فرنسيس كي محو كذا دوين مرة معنا سؤال في عنه وليه يشكل كلنا تروح كود وين وبريفض يعني كل يوم عمل بريفض سومالي ضد الجوي ضمان وقتين يعني هو سكول si lagu barayo xagabax lagu xagabaxaya luqadaadii baa lagu barayaa macallin Soomaali ayaa ku baraya wixii aan ka khaldan ka xumaadada Soomaaliyan baa lagu macnayn karaya marka yani anigu waxa ay turjumaan anigaan oofida la shaqeeyaa naasir ahaan oofida wuxuu dhigtay yani maxay garay dadku wax u bartay laakiin iskuulkana yani waa qofka caawinaya oo xagabaxna weeyaan oo carabkiisa ka shaqeeyo inta badan Soomaaligu dadku luqadda way English waxay ku hadlaan laakiin yani waxa ka maqan in carabkooda loo toosiyo marka waxaan isku daydoonaa inaan carab toosin weeyaan qof يعني سول لقطة يعني وآج وانك مس آتو يعني سيدي لو قلت لك إنه أبرنا لو فرنسيس وكهدي لها بريتو ولا سؤال ده الفيديو مركب وبريفد وحن كافي عنا يعني وحجر بحثك وحن مش وقف النبي ما شاء الله ويوا سيو لك سن نايس فيري نايس كل أفكار هو باهي بدل صون نقطة مياه بس هو أنا واحد عليكم كان شيء باهي لا يمد صدق سنة يعني وش عدد كنا لا صعب الكوسوغن ترجمان هذا وأنا ودي سوى لقط قول ما إنه فرسي meel kasta aniga laga soo xidho aniga asxaabtayba aniga ahaan maxay khaas ahaan waxa la igu dhahaa war goorma noo fursi meel yani luqad aan ku barano marka iskuulkan hadalka loo furay yani waa jawaabta baahida dadka badan soo gaadhiyeen ما شاء الله very nice كل أفكار هو يا لو عيد بحالة دكتور هذا وحوي هذه سكول كلام معناه إحنا كذا دقيقة ولا بالشيء سيدا نفهمي شيء جورس سكول كنا سكول لقد الصومالي وسي ونكسن وسي مدركتي علمية سنة عاد عنيو ولقد الصومالي قالوا مش شغيو طلبات وحوي السيرفيس كله كذا دقيقة هاي قلنا كلام مدركتي بلاش كا وقف كي هالكم يكو حلي سيرفيس بس صوص قلا سيرفيس كاسيو سيرفيس قف هدو مراد وقبها هي دبدة سوق وقبها هي هدو كاف وقبها هي هدو واحد دولة كجحر وقبها هي يرجع سنين يعني قف وراعي دونا ضد راعي دونا هدو قف وقبها هي بخاطر كنا نل رندفو لقبته هدو بها قف من السوق ومال وقادو وقف هدو تلفون وقبها هي من محل ضد في مجال كل شيء وعو markaasi service kaasi iyo ragana ku dareen qal labada sheegay ugu madartay kaga duwan yihiin oo iskoolka bilaashka kulli afka hooya wax laga qanacaa insha Allah intaan ku soo hadoo la ka dhigo madartay ku soo dalab xaqooda ka imaaday waa Soomaalida oo dhaheen maadaama baahidaas jirta iskuul macallim oo noo far Soomaalida ay ka timid dalka ma waa sax waa wax ka mid Soomaalida maadaama aan horta magaalada aad baan muddo badan magaalada Faransiiska waxa weeyaan inta wax soo jiro waa dhibaato soo jirtay
والله aad baan ugu farxaan markaan maqlay iskuulkaasi horta fiican oo maadaama waxa baahi badan soo jirto Soomaaliyeed imka aad ugu soo badatay magaalada Faransiiska markaasi waa dadka cadaankuna aad bay Soomaalidu xitaa si ay dib uga sheegtaan iskuulada bilaashka Soomaalidu dib ka sheegtaan maadaama waqti ma siiyaan oo dib tahay qofkii dalqadii ma garanayo marka ariikii oo waqti isku ma siinayaan oo inuu maadaama cadaan oo afkii qaalaad oo Faransiiska ugu macnaynayo yakiina waqti ma siinayaan markaasi wax xogaa halkaaba iyo marka ay ka cakiran tahay marka waa dib ay kulli soo xal ay gobiyeen magartay waxa la ishay Soomaalidu saxan ma magartay marka iskuulkina wuxuu ka jawaabayaa baahidaas ka jawaabayaa magartay inta muddada dhibaatada haysatay Soomaalideena ee luqadda Faransiiska magartay ka haysatay insha Allah inta baan ku soo xiri doonaa insha Allah magartay oo baaqa aanu darino ummadda Soomaaliyeed maxaa ujeedinay marka ugu dambeyntii su'aasha maxaa ujeedinay Soomaalida iyo ardayda soo diiwaangelinaysa macallin waxaan nagu soo galbeeyay insha Allah maanta yani fursad aad u fiican weeyaan hadaan nahay Soomaali nahay waa in laga faa'iideysto fursadda markuu raadto khalaas isdiiwaangelintu way bilaamatay ilaa muddada ma socotaa bishan Ramadaan hadii way dhiman doontaa oo waliba kuraasi dadka aan ugu qaabilno hadii ka buuxsto 3 bil kadib baa la isku qori doonaa insha Allah marka waxaan sameeynaa yani inuu kursigu ka buuxsamin kursigaaga soo gaad waxaan ileenahay gacmo furan ku soo dhawaada su'aal kasto aad qabtiin yani telefoonka ciwaankeeda ay la soo xiriiri karaysiin ana ni jawaabaya maxay habeen iyo maalin aan jawaabi doono insha Allah marka waxaan isku dayaa inaan yani niga qanciyo wax ka soo aad qabtiin su'aal ka soo aad qabtiin waxaan nigu soo gabadhan ku soo dhawaada iskuulka barashada luqadda Faransiiska kaasoo yacandoo hero kulba xeerka aawanka xeerka aatuga ilaa iyo biyaaniska hamoogaan inaad nagala soo xiriidhi si aad u hesho macluumaad dheeri ah ciwaankeena inta ku qoran ibir 7 6 9 5 3 marka hamoogaan noo soo xiriidhi insha Allah